بسم الله الرحمن الرحيم وعبد الرزاق مسطوريه waxaan ka hadlayaa wixii uu qabsamay dawladda iyo saameyntii madaxweynaha markii uu yimid caabada ay ku yeelatay arrimahaas aad iyo aad bay u hagaagtay saameyntii haddaan u hormaro meeshaan waxay ahayd meel eber ah intuusan la soo gaarin madaxweynuhu uu noo soo jiray ilaa 200 kiiloomitir dabayl caafimaad laha timid dabayshaasna waxay dhalisay in dadkii isdhex maro ayadoo aan cidna u kala dab qaadin ilaa iyo haddana waxaan ku joognaa barwaaqadii iyo layrtii iyo nabadii maalinta la helay ilaahay baa mahad leh wax weyn baa iska bedelay magaaladan Caabudaaq haddii aad weydiisay macnaha intii dawladdu jirtay waxa ay qabatay waxaan oran karaa wax weyn bay qabatay xagga amniga haddii la eego wax weyn bay qabatay xagga dib heshiisiintu waa bilaabatay waxna waa laga qabtay xagga arrimaha gudaha wax weyn baa laga qabtay xagga arrimaha dibadda wax weyn baa laga qabtay xagga hawada wax weyn baa laga qabtay xagga badda wax weyn baa laga qabtay ma sha Allah wax weyn baa qabsoomay guul Soomaaliya ha noolaa bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa Umar Abdi Tahliil waxaan kamid ahay bulshooyinka ku nool waqooyiga gobolka Galgaduud gaar ahaan degmada Caabudaaq haddii aan ka jawaabo labadii su'aalood aad weydiisay safarkii uu ku yimid madaxweynuhu waqooyiga gobolka Galgaduud iyo guud ahaan waxqabadka dawladda halkii sano ay jirtay haddii aan ku hormaro saameynta iyo safarkii madaxweynuhu uu ku yimid gobolka Galgaduud runtii wax dadka reer gobolka waqooyiga Galgaduud ay kulligood wada og yihiin weeye madaxweynuhu wuxuu ahaa roob ama layr caafimaad oo Ilaahay noo keenay waxaad ogtihiin intii madaxweynuhu uu san imaan ka hor waxaa ka jiray dhibaato aad u fara badan waqooyiga gobolka Galgaduud magaalada Caabudaaq waxay ahayd magaalo kala xirxiran oo qabaa'il u kala xirxiran sidoo kale maamulo kala bedelan u kala xirxiran iyo siyaasado kala bedelan balambal iyo ereyadeeda waxaa ka jira iyana sidoo kale isku dhac xaraale iyo hurshe sidoo kale lamid bay ahaayeen guud ahaan meel walba gobolkan qaybtiisa waqooyiga ah waxaa ka jirtay dhibtaas madaxweynuhu markii uu iclaamiyay inuu safar ku imaanayo qof walba qorigii uu watay wuu xaraystay wuxuuna ku talagalay oo aaminay in halkaas ay ku dhamaatay dhibaatadii ilaa maalinkii madaxweynuhu yimid ilaa haddana isbeddelka muuqda waa loo jeedaa dhalinyaradii qorigii waa wada xaraysteen qof walba wuxuu qaatay qalinka xaafad degmadan hadda aan ku noolnahay ee Caabudaaq waxaa jira arrimaha bulshada isdhexgalka oo 6 xaafadood degmada ka kooban tahay ama walba la qabanayay runtii marka waxaa la dhihi karaa guud ahaan dhibkii ka taagnaa waqooyiga gobolka Galgaduud waa dhamaaday waxa ka dhiman hadda bas waxay tahay horumarintii arrimaha bulshada iyo caafimaadka iyo waxbarashada waxyaabaha la midka ah inta haddaan uga gudbo taas waxqabadkii dawladda ee halka sana ahaa waa mid dadka Soomaaliyeed iyo caalamka adduunku intaba ay og yihiin dawladda Soomaaliya waxay ku guuleysatay in amnigi wax fara badan ay ka qabato sidoo kale waxay guul badan ka soo hoysay arrimaha dibadda oo muran badan uu ka jiray sidoo kale waxaan la soo wareegnay hawadeennii Soomaaliya awal laga xukumi jiray Nairobi arrimaha gudaha oo kale waxyaabo badan baa laga qabtay waad ogeydeen hadda tilaabadii ugu dambeysay ee labada maamul ee ka jiray gobolkan Galgaduud waa la wada heshiisiyay meel walba oo gobolka Soomaaliya ka mid ahna sidaas ay u socotaa marka hal sano wixii naga tagay 91 kuma wada qabsan karno laakiin waxaan dhihi karnaa waa bilow fiican waxay qabatay dawladdu yani hawl aad iyo aad muhiim ah oo halkaas sano runtii ka badnayd ahayd in lagu qabto insha Allah taala waxaan u rajaynaynaa bulshooyinka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan in dawladda ay garab istaagi doonaan dawladda Soomaaliya haddii aan la shaqeynin ma shaqeyn karto kaligeed dawladdu ma ahan yani in wax walba iyadoo ay sameynayso waxaana laga rabaa inaan isku tashano oo wax walba anagu aan ka shaqeyno aad iyo aad baan ugu hambalyeynaya bari oo ku aadan 8 February sanad guurada yani cusub ee dawladda noo dhalatay madaxweynaha iyo dhammaan Soomaaliyeed waxaan leeyahay ha noolaadeen bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan ahay Cali Wali Xaaji Axmed waxaan ahay nin sanad 8 hadda ku jira dawladdan Maxamed Farmaajo محمد عبد الله فرماجه
waqtigii hadda qabtay ra'iisul wasaaraha xasan cali khayrana us yahay kaalintii labaad labadaasna waxaan leenahay ha jireen oo ha joogeen nin gobollada ku mara socod oo isagoo socda ilamaa bari iyo boosaaso shacabka dhexdiisa marana waxaan anigu ku arkay maxamed cabdulaahi farmaajaan ku arkay annagu markii aan caabud waaq baan ka hadlayaa aan joogno intii ku noolna ku nooshahay ayaanu ku noolayn wax dawlada oo na dhex yimaada maanaan arag sidii uu noogu yimid wixii annaga dhexdayada taagnaa oo wiilasha xununka ahoo dhiblaawayaasha ah ay noo geysanahayeen oon xalka u weynadoo wax nala qabta aanu weynay wakhtigiis yimid dabayn caafimaad oo naacaw ah baa waddankii ka dhacday waxaa la arkay kuntigood iyagoo isdhex marahaya haatanna waxaa diyaar loo yahay wixii wax kala sheeganahaya odayaashii la qabtay iyo raggii looga tegey inay u kala saaraan ha joogto waa garab taagannahay dawlad baanu aragnaa soomaaliya ha iimaansato qabyaaladu laba nin oo aan lahayn baa hogaaminaya sida xaqiiqda ah oo ku dhaartay inay ku soo celiyaan ha midowdo ha walaalowdo raggaas waxaan leenahay soomaaliya meel ay tahaba xabadda aan dhigno allow nabaddu waa wacan tahay yaa wax naga yeela allow yaa warsada wiilashii bala u weel qaaday wixii shalay adduunyada dhacay bay wax uga jeedeen marun baad isu weydaa mid waraaqa soo diray ninkii wariyadoo raacay oo nabadda waaxyada u jaray waaye arag maaha waxse ugama faa'idin colaad kii wadoo yidhi allow nabaddu waa wacantee yaa wax naga yeela allow yaa warsada wiilashii bala u weel qaaday wixii shalay adduunyada dhacay wax uga jeedeen kuwaan tooba nimankaan lahaa waaye taladii marun baad isu weydaa xumaan wada tidhaahdaa waxaan kaa maqnayn iyo mar baa wahan ku qaadaa waabaayo jiiftiya mar baad dacar waraaqdaa reerkaaga oo wacan mar baad col u wajaaftaa waxyaha jirkaaga iyo markii wuxuun ku gaaraan wiil iyo walaaliya markaad weheshigii weydo dadku waa soo maray soomaaliya waa qariiradaas adduunka dad naga weyn oo naga fara badan baa maanta midnimo iyo sharaf ku nool war dad isku diinahaan nahay war dad walaalahaan nahay war dad rixim kuntigood aan ku kala maqnayn baan nahay xabadda ha laga daayo dadka dilka ha laga daayo qabyaaladda ha laga daayo intaasaan anuu cali xaaji axmeda idin leeyahay bismillaahi raxmaani raxiim magacayga waa saacid ashkir waxaan joogaa magaalada caabud waaq waxaan u mahad celinayaa warbaahinta qaranka taasoo ay qayb weyn nagala qaadanayaan arrimaha ka socda caabud waaq oo xasilinta iyo dib u heshiisiinta safarkii madaxweynaha magaalada caabud waaq wuxuu ku yeeshay magaaladu waxaa ka jiray dhibaatooyin badan oo kala duwan miyiga iyo magaaladaba dadkoo beelo isku leynahayay baahi badan oo jirtay oo colaad ah ayagoo dadku kala xirnaayeen oo magaalooyinku aysan isku gudbi jirin xaafaduhu ay kala xirnaayeen magaaladuna ay magaalo aad u weyn tahay oo 100 iyo xogaa kun oo qof ku nooshahay saas ay tahay ganacsigii aan dadku wada adeegan jirin iskuuladii ardaydu wada aadi jirin meelo badan oo kala duwan oo bulshadu iskugu imaan lahayd aan la tagi jirin waxaa la heli karay family oo hooyada iyo wiilkii ay kala degan yihiin walaalihii oo ay kala degan yihiin ku yaraana ay xaafad degan yihiin kuwa weynaana ay xaafad degan yihiin taas dhibaatooyinkaas jiray wanaagga ay keentay imitaankii madaxweynuhu uu yimid magaalada caabud waaq waxay keentay inay caqabadahaas oo dhan ay qaaday isku furantay xaafadihii dadkii is arki jirin oo 2-3 sano ay sarkaan inay iska warqabaan inay ganacsigii uu ballaartay oo dukaamadii dadkii oo dhan community-ga caawid deganaa ay ka adeegtaan iskuuladii ardadii ay bilaabeen isku wada qoraan ayadoon dadkii la xoogin oo lagu xukumin oo aan ciduna aysan awood u sheegan taas inay ku timid imaanshihii kaliya oo madaxweynuhu u yimid magaalada waxay wax ka qabatay waxyaalihii ugu wanaagsanaa oo dawladdu qabatay waxaa ka mid ahaa doorashada kadib markay dhacday in dadkii ay aqbaleen dawladnimo oo ay aamineen inay dawlad ayagu ay leeyihiin ay imaaday oo ay kulli aaminsan yihiin taas waxay keentay in loo hogaansamo amnigii oo booliiskii nabad sugidii ciidankii xooga dadku ay la shaqeeyaan aynan ixtiraamaan
waxaa imaaday xildhibaanadii shaqooyinkii hore oo hore u socon jirtay mid ka bedel inay sameeyaan oo ay si fiican u shaqeeyaan oo maamulkii dawladda iyo xildhibaanada ay isla shaqeeyaan golihii wasiirada inay isku xiran yihiin oo wada shaqayn joogta ay ka dhaxayso prime ministerkii iyo madaxweynihii inay xiriir wanaagsan oo nidaam dawladeed ay leeyihiin maxaabiistii lagu xiray wadamada kala duwanaa oo Ethiopia iyo India ba la keenay oo dad badan oo wadan gudihiisa lagu soo celiyay oo boqolaal gaar ah Soomaaliya taas wax qabadka ugu wanaagsan bay ahayd hawadii in la furay hadda laga shaqeynayo dhinacii networking-ka oo internet-ka oo Soomaali dadkii laga shaqeynayo ayadana in la soo wareejiyo waxyaalo badan bay dawladdu qabatay inta kalena dawladdu ayada sheegi doonta horumarkii iyo isbedeladii ay sameysay marka dhinacaasna dawladdu ayada ka hadli doonta insha Allah wa alxamdulillah wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam miskiinka alle dabca sarwad garanaysan marka waxa weeyaan alxamdulillah ilaahay ba maad iskala madaxweynuhu ku mahadsan yahay geesinimada uu muujiyay xikmadda maxay madaxweynuhu dalkoo dhan madaxweyne u yahay marka waxa lagu farxa ahayd in uu yimid ilaa iyo xaafuun qardho boosaaso ilaa iyo maaragtay magaalada gaalkacyo magaalooyinka kala xirnaa oo dhan oo isku furmay marka ilaahay furo khayr buu uga dhigay madaxweynaha nabadda deegaanada tan oo dhan xeraale iyo cabduaq waa isku furmeen xeraale iyo huursho waa isku furmeen gurceel iyo haddii ay gudmaayo xeraale waa isku furmeen gurceel iyo dhusamare waa isku furmeen awalna hadda waa iska agdhawaayeen dhuusamareeb iyo cadaada waa isku furmeen cadaada iyo xag meel walba cadaada iyo caabud waa qada waan isku furnaa laakiin oodii iyo qodxii yaalay meel walba waa laga qad magaalada tanada u soo noqonay 6 xaafadood aniga adeerkay diin jecel ama duulaan jecel waxaan iska helnay xaafadda magaceed muxuu ahaa koodhka hore baan iska helnay la isuma geli jirin maanta oo dhan magaaladan ku wareegaynay marka waxa weeyaan imaatinkii madaxweynuhu waxay keentay in magaaladan 6 xaafadood isku furmeen gaalkacyo isku furantay magaalooyinka isku furmeen madaxweynaha khayr Allah siiyo madaxda khayr Allah siiyo dawladii Soomaaliya halka ka shaqeynaysa baabuurtii tiknikada ahayd oo ciidan ku shaqeyn lahaayeen gunnadii caafimaadkii isbitaaladii xeriyihii waa loo dhisayaa ciidamadii ma sha Allah maxkamadii gacmaha tuugta ka goyn lahayd waa la keenay toogan lahayd mujrimiinta xabsiyadii madaxweynuhu waa dhagax dhigay khayr Allah siiyo waana u ducaynaynaa waxaana leenahay madaxweyne qaran weeyaan waa madaxweyne qaran guuleysaan ku leenahay waxaa soo noqotay haybadii dawladnimada soo noqotay waxaa soo noqotay qarannimadii Soomaaliya waxaa soo noqotay rajadii hadda madaxweynuhu markuu ku dhawaaqay nabadda ku dhawaaqay magaalada markuu joogay qurba joogta u baaqay qofkii ugu horeeyo isla maalmihii ugu horeeyay bay yimaada anigoo ka faa'iideysanaya baaqas madaxweynaha anigu ahaa ilaahay khayr ha siiyo